بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعة مبارك. الحقيقة حلقة عنوان كده وحل يرادا سعيد عبد الله الدني. الحقيقة وحن دقيستي war uu sii daayay oo warbaahinta siiyey Siciid Cabdulaahi Deni wuxuu ahaa haddii hawiye caasimadda sheegto waa laga rarayaa alla faan weyna waxbaba muu garan Axmed Madoobe iyo Siciid Deni nafsi baa haya nafsiga maba yaqaaniin nafsiga farmaajay ka galeen xasan sheekh baa ka gooyey waxa ay la baaxaadegayaan oo ay la wareersan yihiin waa nafsigii ay galeen caasimad waa la rari karaa yaa rari kara dadkii ku heshiiyey 60kii 58dii 57dii Siciid Deni dadkaa mas-uul kama wada ahaa meel la yidhaahdo Garoowe waagii horena la oran jiray Majeerteeniya buu joogaa Siciid waxaan leeyahay habbaa xaadegooy shiikhu waa balanbalkiisii warbartaa aad joogto baad joogaysaa federaal idinkaa keenay waa fadare wax aydinaan lahayn ayaad raadinaysaan ma helaysaan idinkoo farmaajo la dagaalamaya baa lacagtu idinku socotay oo aan laydinka jarin waa Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ilaahay waa qaadir farmaajow ka deg buu yidhi kursiga xasanow fuul abaalkiinnii ayuu idin mariyey waana nabsi war qodobkaa Siciid Deni iga geeya oo u sheega inaanu caasimadda Muqdisho keligii ka rari karayn qodobka intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa Soomaalidu waxaanay garan dowlad Soomaaliyeed waxay gacantooda ku jirtaa Sool Togdheer Sanaag waa bridge gobol kale oo ay gacanta midnimadii ugu jirto male nimankaa habar jeclo aroorta hadday yidhaahdaan haddaannu nahay reer Togdheer annaga iyo Khaatumo waannu heshiinaynaa gacantaa wax ugu jiraan labadaba gacantaa wax ugu jiraan Hargeysa gacanteeda waxba kuma jiraan Garowana gacanteeda waxba kuma jiraan Kismaayana gacanteeda war waxba kuma jiraan waaqaca iyo runta aqbala qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa mucaaradkan la baxay sabata bixinta war annagu idima dirsan kuraas baad raadinaysaan falsafadii aad ugu midowdeen farmaajo dee war xasan sheekh hawiyuu idin leeyahay geel ma qali karaysaan dad ma kicin karaysaan xasan aynu madaxtooyada ugu tagno oran kari maysaan antum hawiye isaguna waa hawiye
isagaa xasan sheekh maxamuud gacantaa wax ugu jiraan idinku waxaa gacanta xasan ugu jira baad raadinaysaan maa yasiir doorashada wuu soo hormariyey madaxweyne xasan sheekh ujeeddada uu ka lahaa waxaa weeye muranka hawiye aad soo afjartid iyadoo aan maandaydkii kaa dhammaan qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa alxaqiiqa federaal soomaaliya ma anfacayo federaalku ma aha ku toorjargaray dowladda dhexe waxa aad rabto inaad ka hesho maamulka puntlandna maamullada soomaaliyeed buu ka mid yahay wax isaga dheer oo uu ka dheer yahay war mana jirto anigu run baan ku hadlayaa ujeeddada federaalka loo samaystayna waa madaxweyne aad noqoteen majeerteen haddaad tihiin dee cabdulaahi yuusuf baa noqday ra'iisul wasaarena cumar cabdirashiid baa 2 jeer noqday cabdiwelina mar buu noqday ma jirto meel idinka bannaan oo aad daloolin kartaan war qodobkaana nimankaa majeerteen iga gaadhsiiya alxaqiiqa soomaaliya waxa dowladnimadeedu u hanaqaadi la'dahay waa siyaasi aan aragti fog lahayn waa siyaasi raba inuu kursiga fuulo xoolana ka dhaqdo intaa weeye inta ummaddu ay u kadeedan tahay ma laha intii aniga isoo xukuntay maalintii carta laga yimi ee aan dowladda soo dhisay ee aan xamar keenay war fiishan ma lahayn lacag sidee loo helaa unbaa indhahaygu qabanayeen qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa alxaqiiqa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين جمعة مبارك الحقيقة